السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبada walaalaha axbaabta janalkan Munir Marsi ku xiran walaalayaal soo dhawaada waa saaxiibkiin oo miskiinka alle Munir. Maanta waxaan rabaa inaan muuqaal cusub idin soo duubo. Muuqaalkan wuxuu yahay siigada banaan tahay. Waa ogahay in mowduuca xoogaa uusan ahayn appropriate ama wax ku haboon in laga hadlo, laakiin asxaabta aan fursad u siiyay inay su'aalo isoo weydiiyaan Instagram-kayga ayaa isoo weydiiyay su'aashan. Hadda ka horna waxaa la isoo weydiiyay sidee heesaha dhageysigooda isaga joojiyaa. Waan ka hadlay dhowr qof oo 900 qof oo kala daawatay. Marka waxaan u arkay su'aalahaas la isoo weydiinayo oo ka jawaabayo in ay xoogaa dadka ay jecel yihiin. Saas darteed su'aashan rabaa inaan ugu soo jawaabo. Insha Allah intaynaan hore mowduuca u gelin waxaan ka codsanaa muuqaalkan inaad like saartaan si dad badan u gaaro muuqaalka ama aad u share gareysaan dhalinyarada. maxaa yeelay muuqaalkan ama mowduuca aan rabo inaan maanta ka hadlo waxa uu aad u khuseeyaa ama aad ugu saabsan yahay ama aad u khuseeyaa dhalinyarada. insha Allah mowduucaas jawaabtaas aan rabaa maanta inaan ka hadlo. marka hore like soo saar muuqaalka, soo dhawaada. haddii aad qabtaan su'aalo weli waa igu soo diri kartaan Instagram-kaygan waa ku soo diri kartaan Sarmani meesha igu soo dira wixii su'aal qabtaan. insha Allah xataa haddii isbuuc ay qaadato waa ka soo jawaabi doonaa, muuqaalna waa ka soo duubi doonaa oo su'aashii hore saan ugu soo jawaabo oo kale tan hadda ugu soo jawaabay ayaan kuwa kale ugu sii jawaabi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. waxaana rabaa marka hore inaan mowduuca laba shay u kala qaadno. qofka isoo weydiinaya su'aashan waa qof nin raga dumar ma aha, laakiin waa laga wada faa'iideysan doonaa su'aashan jawaabteeda. waana loo baahan yahay qof walba inuu ogaado. qaarkiina ina ogtihiin laga yaabo, laakiin mar labaad mar saddexaad sii ogaada oo barta xukunka siigada ama al-istimnaa, handijab ama masturbation wax la dhaho. diinta islaamkana markii nolosha dhinac walba ay ka hadashay oo wax walba oo noloshaada ku saabsan diinta islaamka jawaab waa kaga helaysaa oo culimada way kaga jawaabi kartaa. marka hore marka su'aasha waxay ahayd siigadu ma banaan tahay ama diinta islaamka maxay ka qabtaa. su'aal kale oo ku xigtay uu ku soo dhow xijii ayaa jirto, zinada iyo siigada midee haddii aan midee fudud inaan ku dhaco. marka su'aashaas aan ka jawaabi doonaa. marka hore anaga waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sidoo kale Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo kitaabkii iyo sunnada xadiidka ah. marka waxaana jira waxa Ilaahay iyo rasuulkiisa ayna faraan markaan sameeyno waa wax anaga noo wanaagsan oo anaga khayr noogu jiro. wixii Ilaahay iyo rasuulkiisa naga reebaana haddii aan ka reebtoono waa wax anaga macnaha dan noogu jirto oo maslaxadeena bini aadanka maslaxadiisa ku jirto waaye. Ilaahay subhanahu wa ta'ala xakiim waaye, wax walba wuxuu nooga reebay xikmad. tusaale maanta haddii lagu diido wax aad rabtay noloshaada sameynteeda si amar ma aha, laakiin wax baa rabtay si guud ahaan, laakiin wixii kuma suurtagelin. Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas xikmadu ka leeyahay. mar damba gadaal ka ogaan doontaa waxaa leedahay alla waxaas markii aan dhibsanayay inaan waayo khayr baa igu jiray baa leedahay. sidoo kale waxyaabaha hadda tusaale waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga reebay oo hadda la ogaaday inay wanaagsan yihiin waxaa ka mid ah zinada oo kale ama khamriga oo kale cabistiisa. waxaan hadda aragnaa wadamada gaalada dadka badanaa khamriga inuu dhibaato badan u keeno, laakiin ummadaha muslimiinta ah dhulka muslimiinta khamriga aad ugu yar yahay cabistiisa ama isticmaalkiisa. waxyaabaha markaas ku dhib qabaan dadka gaalada ama reer galbeedka kuma dhib qabaan dadka muslimiinta ah wadamada jooga khamriga aan cabin. marka wax walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad ayuu nooga reebay. maxaa yeelay khamriga maandoori waayo qofka maskaxdiisana ayuu bedelaa. markaas qofkii waxbuu kufsanaa, waxbuu dhacaa, ama baabuur shil ku galaa, naftiisu dhibaato u geysanaa, ama ummadii ama dadkii kale bulshada kale ay dhibaato u geysanaa. saas darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad ayuu ka lahaa markii uu naga reebay khamriga. sidoo kale mas'alada haddii aan usoo laabto, Nabi Muhammad alayhi salaam waa dhakhtarka ummadan, tabiibu hadhihi al-umma waa Nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wax walba uu ka hadlay ama wax walba uu noo sheegay wax wanaagsan ayay noo ahayd oo anaga daawo noo ah. marka siigada daawadeeda maxaa waaye? qofkan goormuu siigeysanaa ama uu niyadiisa kusoo dhacay inuu waxa sameeyo. wuxuu sameynaa markii qofkan cunto badan cuno oo jirkiisa aad u dhargan yahay oo dareenkiisa uu kaco oo hormoonaadkiisa ay kacaan, markaas uu qofkan niyeysanaa falkaas inuu sameeyo. nabiga calayhi salaam marka wuxuu noo sheegay xadiidka, wuxuu nooga sheegay isagoo dhahayo calayhi afdalu salaatu wa tasliim. nabiga calayhi salaam isagoo la hadlaayo dhalinyarada annaga nala hadlaayo wuxuuna yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fa innahu aghaddu lilbasar wa axsanu lilfarj
waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wajaa. saas ayuu yihi nabi alayhi salatu wasalaam. dhalinyaroy qofkii awooda man istataaca minkum lba'd qarashkii wixii inuu iska bixiyo falyatazawaj ha guursado. laakiin qofkaan guurka awoodin waman lam yastatic facalayhi bisawm, macnaha guurka wuxuu leeyahay yiri nabi alayhi salatu wasalaam fainahu aghadu lilbasar wa axsanu lilfarj, indhahana dabool ay u yihiin farjigana u fiican yihiin. sidoo kale qofkii aan awoodin guurka waman lam yastatic facalayhi bisawm ayuu yiri nabi alayhi salatu wasalaam fainahu lahu wijaa, macnaha soomka wixii buu goynayaa oo wixii shaawadii wixii oo qofku markuu sooman yahay oo maanta uu soomo yacni uusan wax cunin oo afurka gaarsiinayo waa waxaa go-aysa yacni rabitaankii iyo wixii yaa ka go-aysay shahwadii. marka saas darteeda nabiga alayhi salaam wuxuu noo sheegay daawada yacni qofka rabitaankiisa mar walba badan yahay. yacni marka qofka raba inuu biyo iska keeno ma fiicna ama waa xaaraam inaad biyaha iska keento oo yani istimnaa ah sameyso ama siigeysato shahwada iska keento, diinta ma qabto. laakiin su-aasha kale uu kusoo xijiyey wuxuu leeyahay teebaa iron inaan yani zinaysto ama inaan siigeysto. cabdullaahi ibni cumar iyo cabdullaahi ibni cabaas waxay fatwoodeen labadooda inay roon tahay in qofku siigeysto, laakiin halkii uu ku dhici lahaa yani zinada intuu halkuu ku dhici lahaa uu zinaysan lahaa qofku waxaa u wanaagsan macnaha alistimnaa ahwan, macnaha qofku waxaa u roon inuu yani marka adig mar walba waxaa wanaagsan maadaama nabiga alayhi salaam ku sheegay hadiiba aadan guur awoodin oo gabadhii aadan soo mehersan karin oo awoodin qarashkii wixii inaad iska bixiso inaad soonto. marka soonkaasaa yani daawo ku ah adiga oo kaga badbaadaysaa inaad sigeysato ama aad zina ku dhacdo. qofka muslimkana mar walba inuu is ilaaliyo wax wanaagsan waaye oo ilaahay subxaana watacaala qad aflaxa almu'minuun markuu sheegay aayadaha waxaa ka mid ah waladiina hum lifuruujihim xaafiduun, kuwa yani mu'miniinta liibaanay ee guuleystay waxaa ka mid ah waladiina hum lifuruujihim farjiyadooda xaafiduuna xifdiyey, kuwaas ayaa ka mid ah kuwa mu'miniinta ee guuleystay. marka nabiga calayhi salaam ayaaba daawadii noo sheegay soonkaas aan badino aan sameyno. mawduucana mawduuc laga xishoodo uuna iska yaryahay, laakiin xaqa in la sheego oo wanaagga la sheego mar walba way fiican tahay maxaa yeele dadka ka faa'iidaysanayaan. mawduucan oo kalena waxaa marka aragtid social media marka laga soo hadlo weliba yani youtube-ka waxaa arkaysaa iyadoo dad badan ay daawadeen ma aha yani macnaa markaan saan oo kale uga hadlayna ma aha marka kale. marka insha allah waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka halkan aan kusoo gabagabeynayaa insha allah. hadda dhowaan jaamacaddii wixii ka imaaday imtixaankii halkan haddii aad soo gaartay waxaan ka codsanaya mar kale inaad like saarto, janalkana aad subscribe noo saarto. waa mahadsantihiin dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.